اسمها قدوميها قولها شعبك احنا قدوميها كواد قولها شعبك رئيس وزراء حكومة دولة فدرالك قدوميها محكمة سرع مدحوينها دولة قبليتك كونفور قلبيت قولها وزيرة الحكومة قدوميها قبل كبنادر احنا الدوق مقالة مقدشة اللي بانا لبدا قال شرفت له taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya hobolada kooxda waa bari oo ah hooyada fanka Bambeyda iyo kooxda salaam sharafta bahda saxaafada marti sharafta kale oo caawa kulanka nagala soo qayb gashay dhalinyarada taagan ama fadhiya oo gaaraya la yiri 500 daljir ka dahsoon dadweynaha nagala socda TV-yada iyo idaacadaha kulli waxaan ku salaamo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu keenay waan u dabaaldegayno xuskii سنة جوردي لحدني كواد كسو وريكتي لبعتني لحدي جون كون يسقال بقول لحدن كي وأحمر كي قبلا وقوي أي كحروبين هريدي جميسيجا سكقارن وحان أمه علنا ياه كودي قرن كأو نصو قبل قابية عاوة أسبوع الرياضة وصيدا القرآن نصو قبل قابية حفلة عين روح ضبطن hobolada waa bari aan mahad celin kale aan siiyo heesaha wadaniga ay caawa halka ku soo bandhigeen waa bari waa soo noqotay sida u muuqato waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan u hambaliyeeyo caawa waa habeen wanaagsan waa habeen farxad aad iyo aad u leh noo ah maxaa yeelay waa 26 جون أو أن نو حريدة قادني كودي جولاي إن حقيقتي وحوي كل السؤال بقول لحدن كي لواتين لحدي جون وحنوع يذهبين تاريخ له ومدى الصوماليات أي آد سو صبحين بيرتي حرية ده إيه مقالة هالجيسة لقينا تاجي أما لقى سوري calankii Soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horeysay ciid Soomaaliyeed laga taagay waxa xusid mudan waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino waxyaabahan ka xasuusan waxa kamid ahaa abwaankii Allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabaygi yaraa uu ka tiriyay goobtaas ee ahaa Cabdullaahi Suldaan Timcade Allaha jannadiisa naxariistiisa siiyo isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso iyo wuxuu tiriyay tix gabay ah xogaa yar uu ka taabtay balaana xogaa yar ku daro wuxuu yiri saaxirkii kala guurnay sareeyo manusqaamo أن سيدو يهاي إغنى كان سيد كان صار وحي نقطي في تاريخ الصوماليين بالذهب كجشي ومر والبا وأن حرية دود بالدجنو أي تهاينا صوح حسنو وحي هبين قيرة بدن وقالي ومد الصوماليين كوا أو قيمة له أو فرحات بدن وضتي شعبك الصومالي ميل كسته هجوغاني ان شعورتودي iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii Soomaalnimo ee wadaniyad xakameyn waayeen waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan waxa ka horeeyay habeena badan oo SYL iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hooyan waayeen dhibaatooyin culus
ay soo mareen 17 sano oo dhibaatadaas ah laga bilaabo 15 May 1943 waxaa ku timid horseedayaashaas leegada dhimasho badan dad badan oo loo xiray dhaqaale badan oo lagu bixiyay dadkii halkaas ku dhintay halkan waxaa nagala jooga ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Cabdi Yuusuf aabihiis yaa ku dhintay Allah u naxariisto aniga naftigay aabahay 10 sano ku dhawaad buu xirnaa oo waxaa la soo daayay 60kii markii xorriyadda la qaatay marka victim kuwa badan yahay oo la sheegay dhibaatooyinkii la soo maray marka aniga Maxamed Cabdi Yuusuf waxaan nahay dhashii SYL idinkuna waa tihiin waxay ahaayeen urur runtii hogaamiyey ururadii kale oo siyaasadeed ee waqooyi ka jiray ay ka mid ahaayeen USP NUF iyo SNL waxay ku guuleysteen xisbigii SYL ama maxaan ku raada horseedkii SYL waxay ku guuleysteen ama dhaqdhaqaaqii waxay ku guuleysteen inay ka furtaan xafiisyo meelo badan oo dalka ka mid ah hadday noqoto waqooyi berbere aan ka soo qaado Hargeysa Burco meel kasta oo ay joogaan Soomaaliya xisbiyadaas aan sheegay ama ururadaas aan sheegay waxay qayb ka ahaayeen xoreynta dalka iyo qayb ka ahaayeen SYL waxaa tusaale u ahaa oo mar walba ay ka dhiganayeen tusaale dhaqdhaqaaqii gobonimidoonka ee gobolada waqooyi ka bilowday uu hogaaminayay Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo la dagaalamayay gumaysiga Ingiriiska muddo 21 sano ah hadafka SYL muxuu ahaa hadafka SYL waqtiga dheer qaatay 17 sano qaatay wuxuu ahaa laba arrimood mideynta dadka Soomaaliyeed oo gumaysigu u isticmaalayay inay kala qaybsanaadaan oo kala qoqobo oo qabiilka ugu horeeyo waxa kale oo hadafkoodu ahaa inay xoreeyaan dalka macnaheedu waxay ahaayeen xornimadoon iyo midnimadoon wadada ay ku raadinayeen midnimadaas iyo xornimadaas ma ahayn qabiil maxaa yeelay qabiil waxa isticmaalay gumaysiga isticmaalay waxay ku raadinayeen mabaadiida ama afkaarta wadaniyad iyo ku raadinayeen maxaa yeelay wadaniyadu waxa weeye dal jaceyl weeye waa wax ka sareeya qabiil iyo qabyaalad iyo qof wax ka sareeya weeye waxay ku guuleysteen dadka inay mabaadiidaas wadaniyada ah ay geliyaan ayna u dhintaan ayna u halgamaan taasoo lagu gaaray horumar la taaban karo dhanka kale qabyaalada iyo wixii ummadda kala qaybinayay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu asteeyo ama qofkii lagu arko kamid ma ahayn dhaqdhaqaaqa SYL dhalinyaradaas hadafkoodu waa gaareen hadafkoodu oo ahaa inay dalka xoreeyaan waa tan caawan u dabaaldegayno 26 Juun oo laga ka soo wareegtay 61 sano 1960kii oo gobolada waqooyi ay xorriyadoodii ka qaateen Ingiriiska iyo gobolada koonfureed oo iyaguna July 1 1960kii iyaduna ay ka qaadatay xorriyadoodii xorriyadii way ku guuleysteen hadafkoodii way ku guuleysteen waxay kaloo ku guuleysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan waa ku guuleysteen waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sareyso qalciyay ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba waa isla garanay in dhalinyaradaas vision code ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka keentay qarannimo saas darteed qarannimada waxa loo baahan yahay
in laga shaqeeyo dowladnimo, waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar, waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda, in laga shaqeeyo. sidoo kale waxaan kala ognahay qaybsanaanshaha iyo qabyaaladdu waa the opposite, waa ka soo horjeedka wixii aan sheegay. qabyaaladdu iyo kala qaybintu ummadda Soomaaliyeed waa hooyga qaran la'aanta, waa hooyga colaadda, waa hooyga dowlad la'aanta, waa hooyga saboolka iyo fakriga, waa hooyga sharaf darrada. marka ugu dambaysana intaas markii aad gaarto shisheeyaa ku maamulanaya marka ileen dad ma tihidi. taas weeye waxa ay ka dagaalameen allaha u naxariistay 13 hormoodka ahaa ama horseed ku ahaa leegada. jidkaas aniga aan sheegay oo xunoo dambe way ka leexdeen. jidka waxay aadeen inay midnimada aadaan, qarannimana raadiyaan, dalkoodana ka xoreystaan dadka ku soo duulay oo raba ummadooda inay gumeeyaan. haddaba su-aasha taalla waxay tahay dhalinyaradaas waa garanay oo waa aragnay vishinkooda meeshuu gaarsanaa, waana ka faa'iidnay xaqiiqatan. maxaa yeelay jiilka aniga aan ugu yarahay uuna ugu weyn yahay maxamed cabdi yuusuf yaa wax ku bartay, dowladnimo ay ku heleen, magac iyo sharaf ay ku heleen, haybad ayay ku heleen. 30 sano yaan ku macaashay. waxay tahay marka su-aasha dhalinyarada hadda joogta muxuu yahay vishinkooda, aragtidooda fog muxuu yahay? 61 sano kadib muxuu yahay higsigooda? waxa weeye dhalinyarada hadda joogta waa inay isweydiiyaan maxaa ay uga duwan yihiin dhalinyaradii hore oo dalkan midaysay oo xorriyadda keentay, maxay uga duwan yihiin? aniga waxay igu muuqataa aan ku horumaray dhalinyarada waa weydiiyey, qof walba ha ka jawaabeen, aniga aan ka jawaabo. waxay igu muuqataa, waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan, mustaqbal wanaagsan khaasatan dhalinyaradeenna yaa ii muuqda. dhalinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin, waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa. waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona. haba u badnaadaan dhalinyarada halkan fadhida qaarkood, kuwa badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga Soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqa xoog leh wada sidii Soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanu horumar u gaaro. waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhalinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa. waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoomada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi. anaa idin sheegaya sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyiga Soomaaliya, aan ammaano. waa dad wadaniyiina, horta waa dad wadaniyiina, waa dad ay ku weyn tahay gobonimada oo jecel gobonimada jecel. waa dad matali kara qabka Soomaaliyeed. sidaas weeye meesha mar walbaba halganka Soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato. oo tusaale waxaa noo ah sayid maxamed cabdulla xasan oo 21 sano dagaalamayay. maanta waxaa si xowli ah u socda marka, ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah. dhaqdhaqaaqaas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo SYL-ka, inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin. waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda Soomaaliyeed loo mideeyo. waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawlwadeenno ururo ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay. waxay ii sheegeen
mabaadi'dooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo sida ay diib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska generaal ah guud ahaana iyo arrin aad iyo aad diib u ah oo aad iyo aad u hooseysa waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa noo gareeyey waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa khayraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad sabool ah dal qani ah iyo dad sabool ah ayaan nahay laakiin shuruudda ka horreysa waxay tahay midnimada in la helo intaas igama aysan tegine waxay siiyeen riboort qoran oo reference leh oo caddeynaya soomaali waxay haysato hadday og tahay iyo haddaysan ogeyn oo dhallinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkay arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa maxaana haysta maxaana kala haysta aan isugu imaan weynay maxaan u heli weynay dowlad midaysan maxaan u heli weynay dal midaysan waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen aan idinla wadaaga marka ii dulqaata xogtaasi waa ribooro la qoray waxaa ka mid a ribooradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo geo spectrum iyo British Petroleum iyo Shell Oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in Soomaaliya ay leedahay shidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 oo bilyan waa 5 trillion ma aha wax cirka laga keenay ma aha waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen weeye waxay yidhaahdeen annagoo 5,000 oo bilyan haysana ama 5 trillion haysana yaan wax naloo keenaa oo nala caawiyaa waxay iigu dareen report kale oo ay qoreen BBOE waxa weeye billions barrels of oil equivalent waxaa la qoray 2017 wuxuu sheegayaa natural gaska Soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah intaas waa inta gudaha ku jirta oo aan u baahannahay dadyow kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan laakiin dhulka korkiisa saaran waxaa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama livestock oo ay sheegeen UN report on export UN ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay muujinaya report la qoray 2016 in xoolaheennu ay gaarayaan qiimahooda 2 bilyan oo dollar ogaada si organized ah uma xanaanino dad reemiya wata dad reemiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyagaa dadku ku nool ee si cilmiyeysan
xoolaha looma dhaqdo haddii xoolaha si cilmiyeysan loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative wey waa tira cadad aad u yar wey intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah wey waa inta ugu yar waxaa soo haray kalluunka commercial fishing waxa weeye iyadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014 waxay sheegeen baddeenna kheyraadkiisu inuu yahay 1 billion inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa wey waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wiilashaas waqooyi ka yimid macdanta dalka ku jirta riboorkaana waxaa qoray nuclear energy agency waxa weeye NEA yaa qoray 2016 waxaa ku jira uranium dalkeenna waxaa ku jira dahab waxaa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeyaa copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 bilyan waa inta ugu yar weeye iyada naftigeeda beeraheenu waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 8 milyan hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay 2 webi oo inta badan aan go'in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen riboorkan la qoray 2015 iyo 2016 oo ay qoreen UN reports on export iyada nafteeda on agriculture waxa weeye 3 bilyan baa inta ugu yar tourismka dalxiiska lama hayo bacdama annagu aan isdilayno cid noo imaan karta ma laha saas darteed cid dalxiis kugu imaanaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay xeebta ugu fiican yaan leenahay oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay jasiirado ayaan leenahay waxaan leenahay badda waxay leegtahay ugu dheer Afrika markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitir weeye waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo qaar shidaalka laga dhoofiyo qaar xoolaha laga dhoofiyo qaar logistic kaliya ah qaar ganacsiga caadiga ah nooc kastaba maxaa yeelay ilaahay wuxuuna siiyey logistic wuxuuna siiyey strategic place meel fiican uu ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha 2 badood badda cas iyo badweynta Hindiya waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeena oo haddii aan ka faa'iideysan karno xeebaheenna maraakiibtaasi ay khasab tahay inay ku istaagaan ama biyaha ka qaataan ama ha ku nastaan maalmo dhalinyaradaas marka ii timid oo midnimo doonka ah oo wareegaysa waxay yidhaahdeen Soomaali ma kala maaranto intaas oo ilaahayna waana siiyey khayraad maxay tahay waxana haysta marka xoogaa waxay wax ka sheegeen siyaasiyiinta wax ka sheegeen waan ugu fogaadeen waxay naga sheegeen halkan ku celin maayo laakiin wax fiican ma sheegin aan ku soo koobay waxay yiraahdeen siyaasiyiintu waa dad danahooda ka shaqeeya iyo guryahooda dana guud kama shaqeeyaan iyo mustaqbalka carruurteena kama shaqeeyaan taariikh kama shaqeeyaan mustaqbalka iyo masiirka dalkan kama shaqeeyaan waxaan ku yiri warniyo hanugu fogaanina wax noo reeba waxun baa dhabka ah arrintaas waxaan idin sheegi midnimadu sahal kuma timaado dhalinyarada waxaan leeyahay haddaad doonaysaan midnimo waa inaad kacdaan waa inaad istaagtaan annagu siyaasiyiin baan nahay haddaan dale kala duwan leenahay noo sheega oo noo imaada oo marmarka qaarkoodna khasba haddii kale 20 milyan waa gaaraynaaye wax yar baa naga soo haraya
gaajaan u la'aanaynaa iyo macluul iyo sabool inta siyaasiyiintu ay kala hayaan dadka shacabkana waa dhimanaya carruurteena mustaqbal ma yeelanayaan waxa ummadda ay ku kala maqan tahayna wax macno leh ma aha waa wax yaroo la xallin karo dhalinyarada marka waxaan leeyahay hana sugine ee kaca sidii SYL u kaca oo dhaqaaqa aan ku noqdo mustaqbalku anigu waxaan aaminsanahay rajo fiican baa jirta dadkeenu waa dad wanaagsan oo dad qiimo leh weeye waxaan ilaahay ka baryayaa in rajadaas ilaahay noo rumeeyo yaan ilaahay ka baryayaa oo ah in midnimadeennii ay soo noqoto oo dadka Soomaaliyeed waqooyi koonfur waa la isu baahan yahay aan dib isugu soo noqonno maslaxadaha yararkaana laga tago والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.